بسم الله الرحمن الرحيم في wanaagsan khiyaartana la socota meel kasta oo dunida ka joogtaan waa 17 June sanadka 2022 tibintan qodobada aan idin kugu hayo dhinacyo kala duwan ay taabanayaan waxana kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay daboolka ka qaaday khilaafka u dhaxeeya isaga iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo hogaamiye nidaamka Israel waxa uu ku tilmaamay in uu yahay nin aan abaal lahayn marka la fiiriyo xiisadda iyo waliba xaaladaha Israel ay soo martay iyo sida uu garabsiiyay Trump ayaa waxa uu yiri hadii aan aniga ahaa lahayn maanta Netanyahu waxa uu ku jiri lahaa jeelka iyadoo cadaaladda Israel ay mar hore xilka iyo maamuuska ka xayoobin lahayd isla markaana loo arki lahaa inuu yahay nin dambiile ah waxa sidoo kale eegi doona dawladda Iran ayaa ka jawaabtay hadalkii dhawaan ka soo baxay dawladda Mareykanka gudoomiyaha baarlamaanka wadankaasi Mohamed Baqir Qalibaf ayaa waxa uu yiri cunaqabateen la inaga qaadayo darteed inagu ma noqonayno kuwa isku dhiibi doona Mareykanka heshiiska la gaarayna waxa uu noqonayaa mid ujeedadiisu ay tahay in si dhameystiran labada dhinac oo dawlada ah ay u macaamilaan sidaas daraadeed hadallada ka imaanaya Trump waa kuwa aan la qaadan karin sida uu hadalka u dhigay Trump waxa uu dhinaca kale ka hadlay dawladda Iran nidaamka Israel iyo arrimaha nuclear-ka ee gobolka Bariga Dhexe waxa loo baahan yahay ayuu yiri Israel inay isku filnaato noloshooda iyo waliba difaacooda sidoo kale wararkan idin la wadaagi doona inta barnaamijka ku jira waxa kamid ah telefishinka CNN ee dalka Mareykanka ayaa caawa ku dhawaaqay in uu gacanta ku dhigay nuqul kamid ah heshiiskii ay qarinayso Washington ee ku saabsanaa inay la gashay dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran heshiiskaas oo horey xitaa loogu diiday nidaamka Israel oo dalbaday inay helaan ayaa waxay ku dhawaaqayaan inay gacanta ku hayaan haddaba gobolka Bariga Dhexe rajooyin iyo xanuuno ayaa is ag yaala waxana jira walaac badan oo laga qabo in dhinacyadan mar kale aanay heshiiskan kaliya ku kalsoonaan karin oo isbedelo waaweyn ay man karaan ikhtiyaarteena la socota wararkaasi iyo dhacdooyin kale oo xiiso ayaan idin kugu hayaa barnaamijka caawa iyo lafagurka wararka caalamka iyo diblomaasiyadda meel kasta oo dunida ka joogtaan soo dhawaada aan ku horeeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay in isaga iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu dhaxeeyo khilaaf aad u weyn oo ballaaran oo xitaa sababtay dhinacyada qaar inay isku abaal dhigtaan oo abaal sheegasho xoogani miiska la soo saaro Trump ayaa Netanyahu ku tilmaamay in uu garab weyn siiyay xilli si shakhsi ah u wajahaya xaalad siyaasadeed oo aad u adag haddii aanu ahaan lahayn Donald Trump Netanyahu maanta waxa uu ku jiri lahaa jeelka ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Trump madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in labadii maalmood ee la soo dhaafay ay lahaayeen kuwa adag oo aad u adag waliba isagoo ka hadlay xaaladda Bariga Dhexe xiriirka Israel iyo waliba heshiiska dawladdiisu ay la gaartay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu si cad u sheegay in Iran duqeymo dib loo bilaabi doono haddii heshiiska ay gaartay aanay si wanaagsan u meel marin hase yeeshee wadahadallo degdeg ah oo lala yeeshay xulufada ku dhow dawladda Iran ay suuragal noqotay inay aqbalaan heshiiska is-afgaradka hogaamiyaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu sidoo kale sheegay in heshiiska la saxiixi doono maalinta berri ah ama maalinta xigta oo Jimcada ah isagoo ku adkeeyay in ujeedada ugu weyn ay ahayd in Iran laga hor istaago inay hesho hubka nuclear-ka isla markaana la xaqiijiyo furitaanka marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz waxa uu intaas ku daray in haddii aan heshiiskan la gaarin ay suuragal tahay in xiisadda military iyo duqeymo joogto ah ay dhici karaan oo mar kale gobolka Bariga Dhexe ay qatar weyn galayso Trump waxa uu sidoo kale u muuqanayaa in aanu waxba siyaasada qarin marka la fiiriyo xulufadiisa iyo dhinacyada is hayaanba madaxweyne Trump ayaa sheegay in khilaaf yar uu soo kala dhaxgalay isaga iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu gaar ahaan arrinta la xiriirta dagaalka Lebanon waxa uu sheegay in uu ka codsaday Netanyahu inuu si daacadnimo u dhaqmo isla markaana uu muujiyo dulqaad badan isagoo si gaar ah uga hadlay xaaladda Lebanon uu sheegay in ay tahay mid aad uga xun yahay waxa ka soconaya Trump uu si hadlay waxa uu yiri hadii aan aniga ahaan lahayn Netanyahu oo ahaa saaxiib gaar ah oo aan aniga leeyahay waxa uu noqon lahaa nin xabsiga ku jira oo cadaaladda Israel ay mar hore jeelka dhigaan lagana qaado maamuuska
ra'iisul wasaarenimo iyo waliba sumcadiisa siyaasadda oo hoos u dhici lahayd quwadda Mareykanka iyo waliba dadaal aan ku bixina arrintaasi ayaan ku badbaadinaa ayuu yiri hase haatee mararka qaar waxa uu dhaqmaya si abaal la'aan ah marka Mareykanku ay dood u soo bandhigaan waxa uu noqonayaa in dhinac kale u fakaraya ayuu hadalkiisa ku yiri qorshaha gobolka bariga dhexe ee dowladda Mareykanka ayuu Trump sidoo kale barnaamijkiisa uga hadlay Trump waxa uu sheegay in heshiiska Iran uu la wadaagay hogaamiyaasha dalalka G7 kuwaasi oo sheegay inay ku faraxsan yihiin horumarka la gaaray waxa sidoo kale tilmaamay in heshiiska uu keeni karayo isbedel weyn oo ku yimaada habdhaqanka Iran ee mustaqbalka soo socda madaxweynaha Iran ayaa madaxweynaha Mareykanka ayaa ku adkaystay in go'aanadan ay salka ku hayaan booyir koortaga musiibo dhaqaale iyo mid amni oo ballaaran oo guud ahaanba caalamka gelgeli lahayd intii la socotay barnaamijka kan ka horeeya oo aynu ku baahinay janalkeena Cabdilcasiis Barrow waxaan ku sheegnay in dowladda Mareykanku caawa ay bixisay hanjabaado culus oo ku saabsan Iran haddii aanay si rasmi ah u dhaqan gelin heshiiska gobolka bariga dhexe in dowladda Mareykanka ay duqeyn doonto isla markaana ay qaadi doonto duulaan aan wali lagu arkin gobolka bariga dhexe hadalka Trump uu ka muuqanaya labac iyo shaki waxa ka jawaabay dowladda Iran gudoomiyaha baarlamaanka wadankaasi Maxamed Baaqir Qalibaf oo la hadlay warbaahinta waxa uu yiri sabab la xiriira cunaqabatayn iyo waliba hujuum ka yimaada Mareykanka darteed suuragal ma noqon karaysa inaan isdhiibno oo dowladda Iran ay ka tanaasusho qabkeeda iyo dowladnimada gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iran Maxamed Baaqir Qalibaf ayaa sheegay in aysan weligood isdhiibi doonin si looga qaado cunaqabataynta saaran wadankaasi Qalibaf ayaa cadeeyay in hadda shuruudaha ka qaadista cunaqabataynta ay tahay in ay isdhiibto taasi oo ma aha baaliri mana dhici doonto sida Mareykanku ay filayaan isagoo ku adkeeyay in Tehran ay wali doonayso mowqifkeeda siyaasadeed iyo midkeeda istiraatiijiga ah inay adkaysato iyadoo aan ka tanaasulin sumcadda ay ku leedahay caalamka isagoo ka hadlaya xaaladda dhaqaalaha waxa uu sheegay in aan la dafiri karin saameynta cunaqabataynta waxana uu xusay in dhaqaalaha Iran uu hadda wajahayo kobac taban sabab la xiriira caqabadaasi sidoo kale Qalibaf ayaa ka hadlay awoodda militariga ee gobolka waxana uu sheegay in aanu sax ahayn in la yiraahdo ciidamada Mareykanka iyo Israa'iil ma laha awood balse waxa uu ku dooday in Iran ay si kastaba uga adkaatay dagaalkii ugu dambeeyay ee gobolka bariga dhexe hadalladan ayaa imaanaya xilli xiisada gobolka bariga dhexe ay yihiin kuwa isdaba yaala oo rajooyin iyo waliba walaac badan laga muujinayo sida ay wax u socdaan inkastoo heshiis loo badlan yahay haddana dhinacyadu mid kasta ahi waxa uu muujinayaa shaki weyn uu ka qabo xiisada gobolkaasi ka taagan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in la joogo waqtigii Israa'iil ay isbadbaadin lahayd kana shaqayn lahayd amnigeeda iyo xasiloonida gobolka bariga dhexe si buu yiri aanay ugu tirsanaan dhinac kale madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay in uu doonayo in Israa'iil ay awood u yeelato in ay istifaacdo isagoo ku booriyay in ay muujisaba liri mudnaan iyo taageero ay Mareykanka u haysa taasi oo mahadcelin ballaaran loo jeediyo dowladda Washington Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu ciidan ahaan uga adkaaday Iran toddobaadkii koowaad isagoo ku adkeeyay Iran 47 sano inay ka faa'iideysanaysay isbedelada ka soconaya adduunka iyo mashquulaadkii dhacayay waxa uu sidoo kale sheegay in heshiiska isafgaradka hadda lala galay Iran uu yahay darbi adag oo ka hor istaagi karaya Tehran inay hesho hubka nuclear-ka madaxweyne Trump ayaa ku celiyay in Iran aysan weligeed awoodi doonin inay hesho hub nuclear ah isla markaana Mareykanka uu ku guuleystay in ay ka hortagaan arrintaasi Trump waxa uu intaa ku daray in heshiiska lala galay dowladda Iran uu muddo dheer soconayo isla markaana uu aaminsan yahay in isbedelkaasi uu keeni karayo mid aad u weyn oo waxtarkiisa uu ballaaran yahay xilli dowlado fara badan oo caalamka ay ku guuleysan waayeen inay helaan nuqulka wada xaajoodka iyo waliba heshiiska laga gaaray colaadda bariga dhexe ee u dhaxeeya Trump iyo dowladda Iran uu hogaamiye Mas'uud Pezeshkian waxa hadda soo muuqanaya in telefishinka CNN uu ku dhawaaqay in uu soo gaaray nuqul ka mid ah heshiiska oo ah mid aad u xasaasi ah
shabakada Mareykanka laga leeyahay ee CNN ayaa sheegtay inay heshay nuqul ka mid ah heshiiska 14 qodob ee u dhaxeeya Mareykanka kaas oo qeexaya xabad joojin furitaanka marinbiyoodka Hormuz fudayn dhaqaale oo loo sameynayo Iran iyo sidoo kale Tehran oo la xaqiijinayo in ay si joogto ah uga tanaasuleyso hubkeeda nuclear-ka sida uu xusay warbixinta CNN ay tilmaameen heshiiskan ayaa waxa uu yahay mid aan wali si rasmi ah loo shaacin balse waxa la sheegay in nuqulkan uu xaqiijinayo مسؤول مريكنا iyo diblomaasiyiin inuu qayb ka yahay shirka G7 ee ku kulmeen magaalada Faransiiska qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska oo telefishinka CNN caawa sii daaya waxa kamid ah Iran waa inay si degdeg ah u joojiyaan iyo Mareykanku dagaalada iyo ficilada colaadeed ee ka dhaxeeya labada dhinac inay ixtiraamaan madax banaanida iyo waliba xuduudaha cid kasta dhinacyadu in ay galaan wada hadal lagu galayo heshiiska madambaysa muddo 60 maalin gudahooda oo la kordhin kara baa yiri hadii la isku raaco Mareykanka waa inuu qaado baa yiri xanabaadda gaar ahaan iyo midda guud ee la saaray marinbiyoodka ee ganacsiga wadanka Iran iyo waliba in la xaqiijiyo inaysan weligeed Iran soo saari doonin hubka nuclear-ka sida ku cad heshiiskan CNN waxa uu leeyahay dawladda Iran marka la fiiriyo nuqulka heshiiska waxa muuqanaya in ay sameynayso dabacsanaan ku saabsan inay ka tanaasuli karto nuclear-keeda CNN waxa uu sidoo kale sheegay in Mareykanka uu ogolaan karo in Iran ay iibsato saliid iyo wax soo saarka batroolka sidoo kalena ay heli doonto baa la yiri sanduuq horumarineed oo gaaraya 300 bilyan oo dollarka Mareykanka haddii ay fuliso shuruudaha ku xiran barnaamijka nuclear-ka si kastaba ahaatee dukumentiga lama cadeyn faahfaahinta ku saabsan kaydka uranium-ka tayadiisa sareysa ee gacanta ay ku hayso dawladda Iran xaaladda heshiiska mas'uul Mareykan ayaa CNN ku sheegay in dukumentiga uu yahay qoraal siyaasadeed oo wali aysan ahayn heshiiska madambaysa halka ila diblomaasiyadeed ay sheegeen in nuqul ka mid ah heshiiska la saxiixay si elektrooniga waxaana uu intaasi ku daray in heshiiska si rasmi ah loo qorsheynayo in si rasmi ah loo saxiixo maalinta Jimcada kulan ka dhici doona magaalada Geneva ee wadanka Switzerland dawladda Switzerland ayaa ilaa 2,000 oo askari oo kamid ah militariga wadankaasi geynaysa aagga saxiixa heshiiska si loo ilaaliyo qatar ka iman karta goobta maadaama madax fara badan ay halkaasi iman karaan saacadii la soo dhaafana warbaahinta reer galbeedka ayaa soo bandhigayay xog iyo qoraal uu sameeyay safiirka Mareykanka u fadhiya Tel Aviv Mike Huckabee la yiraahdo kaas oo ku dhawaaqay in loo baahan yahay si halkan kama dambaysa looga gaaro gobolka bariga dhexe in mas'uuliyiinta ciidamada iyo dadka taageersan mabaadi'da ururada Hezbollah iyo dhinacyada Falastiiniyiinta ee Hamas loo raro dalka Iran si ay halkaasi ugu noolaadaan arrintan ayaa waxa si weyn uga hor yimi dalal fara badan oo ay kamid yihiin Turkiga iyo sidoo kale dalka Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar habeen wanaagsan khiyaarta ay nala socotay qaybtan intaas ayaan ku gabagabaynaynaa nabadgelyo